رئيس فرماجو كوري أغني كوريني ربي لكي راجع نونو رئيس فرماجو كوري أغني رئيس فرماجو كوري أغني كوريني ربي لكي راجع نونو ugu horeyn maanta gartay in ay ka hadlaan rabitaankooda dawladda xaqa waxaa mahad iska leh allah keenisu keenay waxaa mahad iska leh allah keenisu keenay oo ina garansiiyey inaynu fikirkeenna iyo damaceenna ka hadalno waxaan idiin sheegaynaa dalku waa lumay intaas 30 sano baynu lusanayn iftiin baa baxay iftiinkaasina waxaa weeye maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa lagu garan karaa madaxweynayaashii hore ee dalka soo qabtay nimaan rifeerta lahayni ma jiro wuxuu keenay baadii oo la og yahay oo kenya ay ku damaaciday inay ku darsato LFD taana waa keenay wuxuu keenay ciidan qaran oo la dhiso oo Soomaaliya leedahay ciidanka maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horreeyay sidaa mar hadday tahay waxaa laale wixii jeel ku jiray oo dhibbanaa oo aan cidi u maqlayn afrika aasiya ameerika yurub meel kastaa ku xidhnaadeen dhammaan iyaga oo xorriyaddoodii wata buu keenay qaybta dhaqaalaha ciidamada Soomaaliya maanta waxa weeyaan ilaa adigu qiyaasta 30 kun oo ciidan intaasoo ciidana oo tayaysan oo cadowga difaaci kara waxa maanta sababa waa madaxweynaha sidaasoo ay tahay ilaah baa ku dhaashay lituuga ninkii dhulka gatay oo badda bixiyey oo heshiiska kula galay Kenya miyaynu door bidnaa maanta miyaynu door bidnaa ninkii gabdhihii Soomaaliyeed Sacuudiga ka iibiyey miyaynu door bidnaa nin imaaraadka u shaqaynaya oo soo dirsaday ninkii dhiibu oo ka iibiya dekada Boosaaso miyaa la geli karaa waxaan idiin sheegaynaa dadku waa xor nin tuuga garablaa oo dalka gadanaya oo dadka gadanaya Soomaalinimaduna ay qiimo lahayn miyaynu taageeri karnaa waxaynu taageeraynaa madaxweynaha sharciga musuqmaasuq laguma hayo cadaalad xumo laguma hayo maamul xumo laguma hayo shisheeyaa isu adeegsaday waxay dilaan u yihiin nimanka mucaaradka waa hubaal waxay dilaan u yihiin Kenya soo dirsaday Kenya soo dirsaday badii Soomaaliyeed lagu dhacaya 15 bisha waatii lagu qaban lahaa shirka dhageysiga dawladda sidaasay ku diideen waxay ku dareenayaan inuu xilka dhaafi karo ilaahay oo ha dhaafin alla ku soo celi wuu hayaa hadduu hayaa ciidda u hiilinaysa ciidda Soomaaliya ha noolato dabadhilifku ha dhaco والمدحوينياشا اللي حلبان قبلنا وما صار ka shaqeynana soo ku shalay xilka hayay maaha isaga maxay tahay waxa maanta la tarayo ma shalay la taro ninkan la yiraahdo maxamed farmaajo baa wax madaxweyne sawirkii leh ama haykal dawladeed yaqaana baa ninka ka dambeeyay waxa weeye system dawladnimo waxaan ugu gudbay
sharciyaddii maxamed siyaad barre sharciyadda ka dambaysay waa maxamed cabdulaahi farmaajo oo keliya ninkii garanaya baa garanaya sidaa miyayan ahayn waxa weeye cid ka dambaysay oo anugu aan xusi karaa ma jirto oo la sheegi karo nin macnaha loo diiday sidaa isaga loogu diidan yahay mooyaane cid ka dambayso aan tilmaami karaa oo taariikhdu xusi kartaa haba yaraatee ma jirto laakiin nin walba taariikhdaa xusaysa intaa ka bacdi waxa weeye ciddii dalka iyo dadka mateli karta baannu annagu taageersannahay waxaannu taageeraynaa maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaarahiisa baarlamaanada kale iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo galihiisa wasiirrada inta hadda xilka haysa oo xaqa ku taagan oo badda soo celisay oo mujtamacii soomaaliyeed oo dabadaha ku kala daartanay dib u soo laabtay oo maxaan kuu sheegaa dawladnimada iyo jiritaanka iyo mustaqbalka soomaaliyeed ka shaqaynaysa baannu taageersannahay waxaannu ka soo hor jeednaa oo intan iyo intanna matelaysa iyo intannala caqlibaha ay ka soo hor jeedaan dadkii dalka iyo dadka iyo dhulka iibsaday baannu ka soo hor jeednaa wartaw sidaa ma aha waxaannu taageersannahay wixii jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee calanka buluugga ah taageeraysa oo ku dheggan oo matelaysa baannu taageersannahay oo aannu la soconnaa waxaannu idiin sheegaynaa oo aannu tilmaamaynaa oo aannu il dheer ku eegaynaa qolada sharci dejinta oo hadda joogta ilaa sharci dejin dambe timaaddo ama iyagu ayba joogaaniin cidda dalka iyo dadka mateli karta inay kala soo dhex baxaan oo aannu aaminsannahay ninka hadda xilka yahay inuu yahay baannu aaminsannahay wartawsaa maaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ha noolaado waxaan salaamaynaa shirweynaha isugu soo baxay taageerada dawladda federaalka oo uu madaxda ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo baannu taageeray baan salaamaynaa salaan kadib maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dawladdiisa waxa isaga taageersan oo raacsan waa soo dhowaynaynaa waxaannu leenahay guulaystaan leenahay ku nagow kursiga mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad intaba ku nagow madaxweyne ku waara ilaahaya kaa dhigo waa soo dhowaynaynaa waana taageeraynaa dawladda federaalka oo madaxweynaha ka yahay cabdulaahi farmaajo iyo maamulkiisa halkani waa taleex waa magaaladii taariikhiga ahayd oo cid waliba ay taqaanno oo taariikhda ku xusan maxamed siyaad barro gobonnimotoonkii soomaaliya halkii laga aasaasay weeye waannu taageeraynaa dhammaan deegaanka taleex iyo agagaarkiisa waxaannu taageeraynaa dawladda soomaaliya oo madaxda ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maamulkiisa soo dhowaada ilaahay ha idinku guuleeyo wax allaale wixii haddii caqabad idinku aana ilaahay idinka hor qaado asbaabta aad ku guulaysanaysaanna waa dariiqa aad ku taagantihiin kaasaa lagu najaxayaa kaasaad aannu annaguna idinku taageeraynaa wax allaale wixii ka soo hor jeeda oo midnimada soomaaliyeed liddukaana waxaan leennahay ilaahay ha soo hadeeyo kii aan hadaysu qornayna ilaahay meel kale ha nooga dhigo sidaasaan ku ducaynaa allahumma salli calaa sayidina maxamed sala allahu alayh wasallam tahay 2021 aan isugu soo baxnay degmada taleex barxaddeedii weynayd ee bartanka ahayd ummadduna isugu timi waxaannu ku taageeraynaa dawladda soomaaliya oo uu madaxweyne ka yahay cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wasiirradiisa ku-xigeenkiisa ra-iisul wasaarihiisa golaha baarlamanka aqalka sare iyo xukuumaddaba baannu ku taageeraynaa waxaannu leennahay cadowga dalka haysta ilaahay idinka badbaadiyo idinkuna kuwii sharciga waafaqay oo sidii la rabay ugu soo baxay allah idinka dhigo waxaannu aad uga dardaarmaynaa nimanka cadowga shisheeye wata oo dalka iyo dadkaba burburinaya ilaahay baa qaban kara ilaahay inaga qabto ilaahay baa qaban kara ilaahay inaga qabto nin intuu gurigiisii ka tegey cadow shisheeye soo gaxaysanaya waa subxaanallah baannu leennahay
madaxweynaha farmaajo oo maanta xilkiisii uu hadda hameenadan uu dhacay haddana waxaannu taageeraynaa inuu mar labaad uu ku soo noqdo baarlamanka iyo xukuumaddaba waxaannu ka codsanaynaa dalka iyo dadkaba nin badbaadin kara iyo aan isaga ahayn haddaad haysaanna u doorta haddii kalena cabdulaahi maxamed farmaajo aannu ku ognahay isagoo sharcigu maanta siinayo inuu dalka isagu madaxweyne ka yahay haddana doorasho dambe haddii lagu noqdo nimaan isaga ahayn annagu ma ogin mana maqal mana waraysan uu 4 sano hayey ayuu caalamka laga aqoonsaday shisheeyana ka xoreeyey qabqablayaashii dalku u xidhnaayeenna dalkii ka xoroobay maanta oo ay u soo gashay xilligiisii labaad waxaan qabaa hadduu 2 sannoo dambe ku darsado dalku inuu afrika noqonayo kii ugu horreeyey soomaaliya dalka dawladnimo ama horumar ayaannu aaminsannahay ilaahay ha ku guuleeyo ayaannu taagannahay cadowgana allah ha ka qabto isagaa na soo dhaqaajo meesha xukun ilaahay baannu ku nimi dhammaan waa salaamayaa inta ka soo qayb gashay waxaannu meeshan isugu nimi qabiilna isugumaannu imaan wax kalena isugumaannu imaan waxaannu isugu nimi midnimada soomaaliyeed soomaaliya way daashay way kala daadatay way silowday way xumaatay ilaahay inuu isu soo ururiyo horta aamiin dhahaya ka xaqa ku taagan oo ururinayana ilaahay inuu saaro hadduu saaran yahayna aanu ka dajin aamiin dhahaya ilaahay isagaa waxoog innagu waxba ma ogin cabdilaahi farmaajo annagu kuma taageerayno waxtar kuma taageerayno oo annagu taleex haddaannu nahay namama soo gaadhin waxaannu qabiilna kuma taageerayno waxaannu ku taageeraynaa soomaaliya wayn wuxuu qabtay waxaannu ku taageeraynaa taariibayaasha wuxuu qabtay gabdhihii sacuudiga wuxuu qabtay badda wuxuu kaga hadlay haddii alla waa kuu roon yahay ayaannu annagu ka hadlay maantana soo kicisay iyo dhibaatada soomaaliya iyo faragelinta iyo maskaxda shisheeyaha iyo waxa ku soo fool leh anigoo ku hadlaya codka gabdhaha sool iyo sanaag iyo cayn anigoo ku hadlaya gabdhaha soomaaliyeed inta aannu wax ka wadaagno oo aannu wadaagno talada iyo mowqafka anigoo ku hadlaya waxaannu annagu taageersannahay cabdilaahi maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya soomaaliya waxaannu jecelnahay inay israacdo soomaaliya waxaannu rabnaa inay israacdo mid maxaan ku dhaha dal jira iyo mid dibad jira magaca soomaaliya waa qaali soomaaliya magaciisu waa qaali ha israacdo ha guulaysato ha isjeclaato ha isgarato ilaahay gacanta shisheeye ha naga saaro wixiina necab allah ha naga saaro waxaan u raacinayaa intaa shalay yar oo buraanbura cabbaasow habaryaar cayayaanku kuma helaan cabbaasow habaryaar cayayaanku kuma helaan caloosha nin buuxsadiyo caaqu kuma arkaan oo caloosha nin buuxsadiyo caaqu kuma arkaan calankii soomaaliyeed wadiga camiray dadkii kala cararay waa kaa iswada cafiyey maraakiib cabsan iyo doonyacaana sida wataa dekadeenna carafteedii leela cajabay xamar wataa lagu cawaynayo cadhalaan oo caanihii geelay oo laysu shubay cambaha garoomadii lagu casuumayo caalamada garoomadii lagu casuumayo caalamada doqontu ruuxii cilmile bay canaanataa ee cabbaasow habaryaar cayayaanku kuma helaan dadkii kala cararay waa kaa iswada cafiyey calankii soomaaliyeed wadiga camiray xamar wataa lagu cawaynayo cadhalaan oo caanihii geelahiyo laysu shubay cambaha maraakiib cadsaan iyo danyacaana sida wataa dekedanii carafteedii lala cajabay oo dadkii kala cararay waa kaa iswada cafiyey
baddii la calaamadsaday ee la kala codsaday adaa cawilow ka soo saaray coodad kulkulul wataa kiniya ku soo cirtay meel cidlaa alla cabbaasow habaryaar cayayaanku kuma cunaan cabbaasow habaryaar cayayaanku kuma cunaan oo caloosha nin buuxsaday iyo caaqu kuma arkan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد saaka oo ay taariikhdu tahay 12 February haddaanu nahay shacab weynaha degmada Taleex waxaanu taagannahay goobtii waxaanu u taagannahay oo aanu saaka u soo banaan baxnay oo aanu halkan u nimi waa taageerada dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo baanu halkan u nimi sidii gabdhihii iga horeeyay ama dadkii iga horeeyay sheegaba annagu dawladda manfaceedu nama soo gaarin wax qabadna kama aan arag balse waxaanu ku taageeraynaa dee ummadda Soomaaliyeed awalba waa u dhiman jirno waa naloo layn jiray intaasaanu halka u taagannahay ummadda Soomaaliyeed maanta calanka la harsanayo dadkii u soo halgamay oo loo laayay oo loo xasuuqay oo diyaaradaha loogu laayay baanu nahay saakana halka waxaanu u taagannahay taageerada ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inay midowdo oo wax noqoto oo israacdo baanu halka u taagannahay waxaanu kaloo aanu halkan u taagannahay waxqabadka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa ummadda Soomaaliyeed oo wax u qabtay oo u ururiyay oo haddii alla idinkeeda leeyahay shisheeyaha iyo haddii alla idinkeeda leeyahay daba dhilifka ummadda Soomaaliyeed haddii alla idinkeeda leeyahay iska hortaagay oo ummadda Soomaaliyeed u mideeyay intaasaanu halka u taagannahay waxaanu kaloo halkan aanu saaka ka cadaynaynaa mowqafka iyaga haddaanu nahay shacabka reer Taleex Kenya waxaad ogtihiin shalay waxay tiri inta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo joogo xukunkii badda ee maxkamadda ICJ yaalay dib ha loo dhigo oo haddii alla idinkeeda waxaanu sugaynaa inta muddo 3 bilood dib ha naloo ku dhigo waxaa la rabaa oo ay Kenya sidaa u samaynaysaa in Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xukunka marka uu ka tago meelaha hotel Jasiira iyo ku shiraya iyo kuwan maamul goboleedada meelahan in mid laga soo saaro oo la yiraahdo waa madaxweynaha Soomaaliya ka in badda iyo bariga labadaba laga saxeexdo intaasaa la rabaa waxaan cadaynaynaa oo mowqafkayga ku cadaynaynaa oo aanu cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay beesha caalamka midowga Afrika urur goboleedka igad waxaan ummadda Soomaaliyeed wad dawladaha muslimka ah waxaan u sheegaynaa xukunka badda inaan maalin lagu dari karin sidiisii inuu ku dhacayo inaannu taageersannahay oo aanu garab taagannahay madaxweynaha iyo dawladdiisa oo Kenya dhulkayaga aysan taaka kaga soo xadgudbi karin hadday bad tahay iyo hadday berri tahay intaba annagu aanu leenahay oo aan xukunka badda aan dib loo dhigi karin maalinna aan lagu dari karin xukunka sidii uu yahay iyo wakhtigiisii lagu rido inahaasaan ku soo keebayaa ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa Farmaajo ha guulaysto Soomaaliya ha israacdo ilaahay cadawga ha naga qabto oo badda iibsaday oo haddeer ummadda Soomaaliyeed iyo badda iyo nidaamka iyo doorashada hortaagan waxaan leenahay war maanta waxay taagan tahay yaa naftii bay taagan tahay siyaasad laga hadli maayo qadiyad baa laga hadlayaa dalkeennii baa duulaan lagu yahay haddii alla idinkeeda leeyahay badaheennii baa la qaatay barrigii baa lagu soo duulayaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed intaa u tudhaan oo aad ka daysaan haddii alla idinkeeda leeyahay dawladda aad ka daysaan dibindaabyada iyo caqabadda intaa ka daysaan war dadka iyo dalka u tudha haddii maanta aad dalka iyo dadka u tudhi weydaan garabkiinna alla ka baxaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta ay taariikhdu tahay 12 Febraayo waxaanu halkan u taagannahay annagoo taagan xaruntii daraawsheed ee Taleex waxaanu u taagannahay taageerada mugiyo miisaanka haddaanu shacabka reer Taleexnahay aanu ku taageerayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxaan u taageeraynaa inuu mar labaad ku soo noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu mar labaad soo noqdo baan ku taageeraynaa annagoo shacabka reer Taleex ma taageerteen Farmaajo ma taageerteen waxaanu taageeraynaa maanta barxadda Taleex taariikhiga u taagannahay Farmaajo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baanu taagannahay ma taageerteen waxaan kaloo halkan aanu uga soo banaabaxnay baddii Soomaaliya oo Kenya ay tiri dib baanu u dhigaynaa inaan dib loo dhigi doonin oo wakhtigii loo cayimay ku dhacdo ma taageerteen
farmaajo ha guulaysto cadowga ha dhaco waxaa socda maanta mudaharaad aad iyo aad ballaadhan kaasoo dadku shucuurtiisa ay ku muujinayaan bulshada qaybaheeda kala gedisan taageerada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dawladda anoon kala reebayn dawladda oo dhan dawladda federaalka soomaaliya taageeradaas oo ku saabsan sidaad la socotaan waxaad wada og tihiin in waddanku doorasho uu geli lahaa 2 teeram ayaa waxaa dhacday in mar walba maamul goboleedyada qaybo ka tirsan ay fashiliyaan taasna iyagoo oo uga jeeday in ay ku riixaan doorashada markii hore waad ogeydeenoo 1 man 1 vote bay ahayd oo baarlamaanku ansixiyey taas way diideen doorasho dadban baa haddana laysula yimi haddana way diideen tii ugu dambaysay oo dhuusamareeb waad ogeydeen oo ay fashiliyeen haddana waxay maraysaa meeshii ugu xumayd iyadoo aynu ognahay in waddanka dawlado shisheeye faragelin ku hayaan baddii soomaaliya in la qaatay oo markii shanaad ay Kenya doonayso inay haddana dib u riixdo waxyaabahaas oo dhan uma muuqdaan nimankan maamul goboleedyada iyo mucaaradku haddaba waxaan leeyahay aan ugu baaqaya shacabweynaha Soomaaliyeed iyadoo caqabadahaas faraha badan ay jiraan in aan dib dambe u dhicin in dawladda loogu sameeyo lug la qabto ama majaxaabin lagu sameeyo mar dambe marka waxa weeye war waxa aan leeyahay si fiican dawladda loo taageero oo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh